qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Cadaado isugu jira odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyarada iyo mas'uuliyiin kala duwan oo maamulka degmada uu qayb ka yahay ayaa ka qayb galay xafladan oo ahayd mid uu musharax xildhibaannimadiisa ku shaacinayay Cabdullaahi Cali Maxamed Baarle madaxweynihii hore ee maamulka Xubniya Xeeb oo ka dhacday gudaha magaalada Cadaado bulshada ka qayb gashay munaasabadan shaacitaanka xildhibaan ayaa isla qiray inuu mudan yahay musharax xildhibaan Baarle xilka uu deegaanka u soo doontay si bulshada ugu matalo waxqabadkiisana hore loo soo tijaabiyay gudoomiyaha degmada Cadaado iyo qaar kamid ah ka soo qayb galayaashii munaasabada ayaa halkan ka jeediyay hadallo isugu jira dhiirigelin iyo duco wixii uu deegaanka ku soo kordhiyay iyo wixii uu rabay inuu ka hadlo iyo wixii anagu soo dhaweynaan lahayn waana soo dhaweynay insha Allah waxaan diyaar u nahay inaanu dhageysano kelmadiisa soo dhawaan leeyahay madaxweyne xafladda markaan aan waa furay xafladdan waa noo furan tahay khudbadda madaxweynaha ayaanu markaan sugaynaa insha Allah wuxuu noo sheegay madaxweynuhu inuu maanta yahay musharaxnimadaas wuxuu cadeeyay inuu beelo kale hoos ahaan ay wada leeyihiin kursiga musharaxa Cabdullaahi Cali Maxamed Baarle waa soo dhaweynaynaa musharax soo dhawow waxqabadkaaga muuqda horay u jiray haddana waxaan rajaynaynaa galmudug oo dhan ninkii isku keenay baa tahay sidii dadkuna ogay adiguna aad sheegtay haddana waxaan rajaynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne Baarle waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa waxqabashadiisii hore waxaan ku soo dhaweynaynaa hadda taagnaashagu u taagan yahay xilka xildhibaanada u taagan yahay ku soo dhaweynaynaa dadkaan adiga iskale oo dalkaan la jeera daryeel guud iyo adaan dowladka rabnaa xilka doonaysa rabbiga yaa kugu galaado horna madaxweynaad u ahayd iminkana waxaa tahay musharax u taagan kursiga xildhibaannimada ee sanadkan 2021 waxaan leenahay annagu dhammaan inta hadda kursiga leh waxaan leenahay waa nin dadka dibacadiisa yaqaan waa nin muddo u soo shaqeeyay waa nin beesha kursiga leh beesh hoose iyo mid karaba ay u sinan yihiin oo dadka si fiican u yaqaan oo dadka aniga kursiga reebalanka raba aan ahayn Baarle taariikhii hore uu qabtay ayaa maanta taagan meeshii uu naga qaaday meeshii uu nageeyay waa dareemi kartaa waan ognahay annagoo qabiil oo reer Xaaji Salabaane oo Xubniya Xeeb ayuuna qabtay ka bacdina wuxuu la gaarsiiyay dowlad federaal inaan noqono oo dowlad raacan oo maamulkii galmudug daadeen oo dhisno waxaan dareemi karaa Baarle meel ka sareysa inuu mudnaa kursiga uu ka soo doonay beesha reer Maxamed Cabdi ee baarlamaanka wax ka badan u mudnaa waxaan dareemaa malaynayaa kaasina ka hadal bijirino loogu shubtoona maanta saas uu ku yahan leh Baarle ee baarlamaan sharaf weyn ayay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno waa xaflad lagu soo dhaweynayo qof deegaanka taariikh kale deegaanka u soo shaqeeyay waxaan leenahay mudane musharax Cabdullaahi Cali Maxamed Baarle soo dhawow deegaankaagii iyo dalkaagii oo laga jecel yahay ku soo dhawow waa ku faraxsanahay inaad deegaanka aad wax badan u qabatay aad ku soo laabato maanta aad naga soo doonto deegaanka ka soo doonato waxa aad mirihii aad shaqeysay aad laftirka u soo doonato waana inaad dareentay in deegaankan iyo dadkan ay ku jecel yihiin sida ay dhamaantood banaanka ugu soo wada baxeen musharax xildhibaan Cabdullaahi Cali Maxamed Baarle oo goobta ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay inuu yahay musharax xildhibaan xilku isku soo taaga haddii uu ku guuleystana uu noqon doono mid bulshada lagu matalo lana imaan doono dib u heshiisiin iyo sidoo kale daryeel bulsho oo ah halku dhiga musharax xildhibaan ee Baarle had celiyo dhammaan walaalaha rag iyo dumar odayaasha dhaqanka dhalinyarada ciidanka idaacadaha iyo social media tan galmudug ummadda oo dhan ku tiirsatay waana la helay caqabadeedana waa leedahay taasaan marka waxaan rabnaa inteen uga sii baxnaa xageen loo socdaa inteen ka nimid xageen yeelnaa ayadan marka waxaan rabnaa maanta bal wax yar inaan ka taabano war deegaankan wuxuu leeyahay maamul local ah iyo maamul dhexe maamulka localkana dad raba dadna waxay rabaan maamulka dhexe oo dawladda federaalka noogu jira waxaan rabaa meeshaan inaan ka cadeeyo maanta anoo isleh dadkii deegaankii iyo nidaamkii aan ka shaqeynaysay
oo aa u timid oo aa mas-uuliyad intaas u haysay oo aa wax badan la soo qabatay inaan hortooda ka sheego waxaan ka mid ahay xubnaha u tartami doona dowladda federaalka baarlamaanka dowladda federaalka adinka inta fadhiya dadka deegaanka aan degno ilaa Hobyo jooga waa mas-uuliyad ay leeyihiin ayaga lagu matalaa 4 xubnood aan ku leenahay xubin ka mid aan rabaa inaan u tartamo haddii Allah subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo taas markii aan ka soo daadego waxaa jiri doona baasha in hoos loo dhigo oo runta la isku sheego tiimka dambe oo hoos loogu dhigayo insha Allah si gooni ah rabaa inaan ula hadlo oo aan ballanno ma dhacaysa inaan idhaahdo war waa soo qaaday baashii aan la cararin dhinac ula cararo baashaan waa caqabado badan tahay waa la soo arkay wax caqabad daba socdaan kii qaatana wax uma gasho kuwii laga soo qaadana wax uma gasho waxba haddaan qaadayno oo meel geynayno wax naga dhaxeeya kan qaatena uu aaminsan yahay dadka gadaal ka jira inay leeyihiin dadka gadaal joogana ay leeyihiin waxaas ninkaas oo wadina ayaga wax ku leeyihiin nidaam saasaan rabnaa haddii alla idmo inaan ku shaqayno oo aan wax ku raadino asbaabtaas inay keento kala fogaasho isnacayb wax isku darsasho la'aan marnaba diyaar u maahay aniga shakhsiyan diyaar u maahay horena diyaar uma soo noqon berrina diyaar u maahay taasaa keeni doonta inaan si daacada oo aan dhibaato ummadda u geynin kursigaas isugu soo sharaxo aan u taaganahay fikirka iyo ra'yiga aan ka heli doono intiinaan iyo inta aan sheego dhulkaan degan waa mas-uuliyaddooda la qaadi doonana inaan tala gelino ulajeeddada aan rabo marka inaan halhays ka dhigto mar walba waxay tahay dib u heshiisiin iyo daryeel bulsho haddayse dib u heshiisiin dadka dhexdooda ka jirin daryeelna aan isku qabin oo bulshadu aysan daryeel isku qabin wax badanaa naga qaldamaya adinkaan fikirka idin soo dhiibaa waxaan hortiina ka caddaynaa intana hor fadhisa iyo inta maqli doontaba waxaan u taaganahay xibintaas diyaaraan u ahay su'aalaheeda tartankeeda sidii ummadda loogu heshiisiin lahaa meeshii laga qaadi lahaa intaba waxaan usoo diyaar garoobay inaan ka jawaabo la fadhiisto la hadlo wax ummadda wax u galan aan kor u qaado taasaan ilaahay ka rajaynaa inuu igu kaalmeeyo ma ka rajaynayo wax ummadda dhibaato u keeni doona inaan qaado ama aan la cararo Mahad Nuure Axmed raadiyaha iyo TV-ga Dalsan magaalada Cadaado.